caano aan fiiqsi loo dhamin feeraha ayay waxyeelayaan. weli maadan garanin wanaaga gabdhaha Soomaaliyeed ay leeyihiin. caalamka maanta aan ku noolnahay Soomaali haddaan nahay gabdhaha ugu sharafta badan leh oo ugu qiimaha badan leh oo ugu qaayaha badan leh oo ugu kartida badan leh Soomaaliya ka dhasheen. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashayda qiimaha iyo qaayaha leh meel walbaad iga daawanaysaan. waa YouTube channelka walaashiina Aamino Macalin. soo dhawaada. haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtana soo dhawow laba jeerba. waa ku mahadsantihiin dhiirigelintiina, daawashadiina, kommentiyaashiina qurquruxda badan oo ducada u badan aad ii soo dirtaan mar walba. waa idinkaga mahad celinayaa. run ahaantii YouTube channelka meesha aad gaarsiiseen waxaa leh waa meel aad iyo aad u qurux badan. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin asxaabtayda qiimaha iyo qaayaha leh. haddii dhiirigelintiina aan haynin waxna ma qaban karno. mawduuc maanta miiska noo saaran run ahaantii waa mawduuc aan ugu talagalay inaan uga hadlo qiimaha gabdhaheena ay leeyihiin, walow aysan ahayn mid lasoo koobi karo. anigoo fariin muhiim ah u diraya mid yar oo baryahan TikTok aan ku arkayay qiimihii hablihii Soomaaliyeed iyagoo isku duuban. run ahaantii aan dhihi karo weli muusa garanin. Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa waxaad cayday waa waxaad heli weyday. Soomaali waxay tiraahdaa wixii aad heli weyday ayaad caydaa. sideeda banaanba marka aadan garanaynin wanaagga shayga uu leeyahay agtaada qiimo kama lahan. sidoo kale Soomaalida waxay ku mahmahdaa dhanka mahmahada weli ku jirnaaye qorxi jeeray dhacdo lama ogo waxay hayso. marka gabar Soomaaliyeed weysidne waxaa kugu dhacaya stresska hadda ku haayo oo kaleeto ayaa kugu dhacaya. run ahaantii horta waxaa marka hore ka xumahay oo aan ka cudur daaranayaa anigoo ah hooyo Soomaaliyeed in aan afkayga gaarsiiyo wiil Soomaaliyeed. xaasha kulilaa wiilasha Soomaaliyeed way ii qiimeysan yihiin, way dhaleen alxamdulillaah, way ila dhasheen alxamdulillaah, waan dhalay alxamdulillaah. waxaan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed marnaba agtayda kama xumo. halka wiilka kani uu gabdhaha Soomaaliyeed oo isku duuban uu afkiisa gaarsiiyey, aniga wiilasha Soomaaliyeed ka Aamino ahaan halkan ayay ii saaran yihiin, madaxayga ayaa saaran tihiin. waan ku faanaa Soomaali ayaa Ilaahay iga dhaliyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Soomaali ayaan ahay, muslim ayaan ahay, qowmiyad sharaf leh ayaan ka soo jeedaa oo Soomaali la dhaho. sidee marka afkayga ugu quuray in aan wax uga sheego wiil Soomaaliyeed? xaasha kulillah, xaasha kulillah. run ahaantii way ammaano yihiin. waxaa jiro haddaad adigu aaminsan tahay in dumarka Soomaaliyeed bataatanba ay yihiin dad qariban, qaab daran, wax kasta ah. annagu waxaan aaminsannahay wiilasha inay yihiin wiilal wanaagsan, sharaf leh, ixtiraam leh, cizi leh. sababtoo ah inaan annaga aamino waxaan ka aragnay iyaga. waxaan arkayaa hadallo isdhaafdhaaf ah oo tiro badan oo inan yahow kaa soo yeeraya. sideeda banaanba qofka markii aad rabtid inaad bulsho la hadashid, la imow taalanti iyo wax adiga aad kula hadashid. horta yaa ku dhalay sidaada banaanba? ma waxaa tahay muus iyo cambe dhulka ka soo baxay? ma waxaa tahay babaay iyo batiiq? mase waxaa tahay yaanyo mirooley? geedkaba Allah subxaanahu wa tacaala ayaa abuuray oo dhulku ka soo baxay. soo kamaadan imaanin hooyo caloosheeda, soo kamaadan imaanin. soo maadan soo nuugin naaskii hooyo macaan, soo maadan soo nuugin. soo laguguma soo qaadin dushii hooyo. soo maadan soo nijaasin oo aadan ku soo matagin oo aadan ku soo saxaroonin dhabtii hooyo. soo habeeno badan hurdo uma aadan diidin hooyo qiimo leh. soo dharaar badan kulama aysan taagnayn si ay ku aamusiso darteed. sidee maantay ula soo dhex istaagta microfonka iyo kaamirada hortiisa in aad hooyo aad wax ka sheegto? hadalladaada waxaa ka mid ahaa hooyo waxaa tiri islaan daalan oo 9 wadato. ha u istaagin adeer ka dhaqaaq. waxaan ka xumahay fikradda qaldan ee qaabka daran leh aad u gudbinaysid ilmaha yaryar ee soo koraya. war waxaad ogaataa waxa kani in ay yihiin wax record ah oo ku jira videoga kuna jiri doona insha Allah. maxaad ilmahaaga hadhowti la hortagi doontaa marka aad uga sheekeynaysid ixtiraamka waalidka, walaasha
iyo dariska qaraabada dariiqa uu kugu leeyahay maxaad ilmahaaga ula tegi doontaa ilaa waxay arkayaan rikoor kaa yaala dunida waxaa kaa yaala in aad tahay ninkii afkiisa ku nijaaseeyo hooyo macaan miyaysan gabar kula dhalan walaal halkaas su'aalan ku weydiinaa iiga soo jawaab haddii videogaygan uu ku soo gaaro waxaad iiga soo jawaabtaa miyaysan gabar kula dhalan horta haddii aad gabdhaha Soomaaliyeed u arki weysid inay walaalaha yihiin miyaysan gabar kula dhalanin miyaysan gabar ku dhixin run ahaantii waxaan ku tilmaami karaa aniga weli maadan garanin wanaaga gabdhaha Soomaaliyeed ay leeyihiin caalamka maanta aan ku noolnahay Soomaali haddaan nahay gabdhaha ugu sharafta badan leh oo ugu qiimaha badan leh oo ugu qaayaha badan leh oo ugu kartida badan leh Soomaaliya ka dhasheen research ma sameeyeen Google ka gal gabdhaha Soomaaliyeed ku qor intee gabar dhaqaatiir ah oo cilmi iyo maadi labadaba baratay subhanallahi asa wajalla intee gabar dhaqaatiir ah intee gabar social media ku jirto ayadoo sharaf badan hal tusaalaan ku siinayaa maadan arkiyaa walaashii quruxleena saraabti doon Allah deestay maadan arkiyaa titores Zahra Allah noo deeyay oo diini iyo maadi labada barato titores oo murabbiyada al ustaad Zahra aad ayaan u jeclaa baarakallah maadan arkiyaa walaashii saraabti doon xaafidillah Allah xifdiya ayadana ya maadan arkiyaa ustaada Amaalina oo gabdhaha TikTok ka wacyi gelisa habeen kasta oo u sheegto wanaaga gabadha Soomaaliyeed ee leedahay maadan arkin gabdha tira badan oo aan halkan ku soo koobi karin haddaan iraado xabad ayaan u sheegayaa maadan arkin miya walaashay qiimo badan farxiyo lama filaan ee qoraas sare ah ee buugaagta qorta halka furiinka buuga sawaha furiinka ay qortay buugaag tira badan oo dhalinyarada kula hadlayso jacaylka iyo qiimihiisa iyo wanaagiisa u qorto haddaan iraado gabdhaha Soomaaliyeed haddii social media ku jiraan iyo haddii guriga joogaan waa soo koobiya xaram caleek ma soo koobi karo intee gabar ee sharaf badan ee qiimo badan ee qaaya badan ee social media joogta ee gabdhaha wax u faa'iideysa Soomaaliya gabdhaha jooga social media markaan fiirsanayo waxaan ugu jeclaa ustaada Sahra Cabdi ayaan ugu jeclaa Ilaahay ha noo barakeeyo cimrigeedana Allah noo dheereeyo ya marka la dhaxana gabdhaha wax kariya ee wax sameeya ee macallimiinteedana saraabti doona ugu jeclahay maxaa yeelay wax badan ayaan ka faa'iiday marka xagga jacaylka iyo dhalinyarada loo fiirina walaashay farxiyo lama filaan ayaan ugu jeclahay TikTok-na hal gabar ayaan ka fiirsadaa ustaada Amaalina Salon ayaan ka fiirsadaa ma garatay run ahaantii ma aadan garanin wanaaga ee leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed adiga hadda waxaad u baahan tahay inaad ku biirtid groupka la yimi heli kara ee ustaada Amaalina wax badan oo cilmi ah oo ka maqan ayaa soo helaysaa wax badan oo aqli ah oo ka maqan ayaa soo helaysaa gabdhahaas intee noo joogaan iyo kuwa kaleeto inta aan xusin xumaan igama ahan iga raali ahaada waxaan leeyahay wiilkan walaalkeena ee fikradda qaldan dan kasta uu ka leeyahay maanta ku soo biirinaya social media ee waliba heer gaaray intuu live soo gala yiraahdo intee sana ayaa daanyeer ahayd war daanyeerka Ilaahay ayaa abuuray waa xayawaan rabbuna waa rag waa baan wax daanyeer la dhaho ma jiro haddaad xanuunsantaana bilis Dr. Xabiib tag yaqaan Dr. Xabiib u tag xarunta dadka dhimirka ee Xabaab u tag bilal bulshaabi iyo wiilasha qiimaha leh ee caawiya ee maxaa tiraahdaa dadka Soomaaliyeed ee caawiyaan ha ku caawiyaan Xabaab hal ugu geeyo hal ugu daaweeyo haddii aad caafimaad qabtid aad hadhooti Soomaalidu waxay tiraahdaa ama afeefar lahaa ama adkeysimo dambe lahaa haddii aad hadhooti oran doontid hal iga raali ahaado aad fiyuus raadis tahay ama aad rabtid dana kale aad u soo gashay aad dhii doonto hal iska ka saan wax iga noqdeen haddaba ka fiirso waxa ku hadlaysid waxaan waa wax duuban qoladii rememberna meel ku fadhisan oo bari kula imaan doonto hooyo Soomaaliyeed oo caruur wadata hooyo Soomaaliyeed oo caadi ah gabar Soomaaliyeed mid la qabo wax ka fakaday oo Ilaahay abuuray ma jiraan ma waxa lagu soo diray in qoysaska Soomaaliyeed burburisid anaga Soomaaliyeed yiraahdaa xaasha waduud ma qaadana dulmi markay dumarka Soomaaliyeed ay joogtana wadanka kan maanta aad u jeedid meesha uu soo gaaray
waddanka kan maanta aad u jeedid horumarkiisa iyo barwaaqadiisa alxamdulilah allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan. hooyo Soomaaliyeed ayaa sabab u ahayd. hooyo Soomaaliyeed ayadaa dhasha ubadka, iyadaa suuqa ka shaqeysa, ayadaa ilmaha korisa, ayadaa madrasadooda dhiibta, ayadaa cuntadooda cuni lahaayeen u shaqeysa, iyadaa jaamacadda ka bixisa, ayadaa shaqada dharka ay ku aadeen u iibisa, raggooda kaalmeeya, wax walba. waxaa uga mahad celinayaa ragga Soomaaliyeed ee caqliga leh ee ka soo jawaabay, ee ka dhiidhiyey, ee gabayada u soo qaaday. haddaba wiilka kanow ma ogolaanayna anaga aflagaado, ma ogolaanayna waxa aad ka wadid. hadalladaada waxaa ka mid ahaa naag la soo furay ayaa waxay motivation u sameynaysaa kuwii kaleeto. adiga maxaa lagugu soo furay aad dhahday? su-aashaas anaa kaaga jawaabaya Aamino ah. ani adiga isku facana cimrigaaga haddii aan fiiriye. adiga oo kaleeto yaa waaye gabadha la joogayso? ma iiga soo jawaabi kartaa su-aashaas? adiga oo kaleeto oo saan hablaha u caynaya, bal ka waran haddii xaas ay yeelatid xaaskaaga see kula dhaqmaysaa? subxaanaka yaa cadiim. waxay gabdhaha Soomaaliyeed wax ugu sheegaysaa, motivation u siinaysaa, waxay siinaysaa experience, khibrad ayay siinaysaa. maxaa yeelay qof haddaad aragtid bini aadanka wax u sheegayo, wuxuu u sheegayaa khibradii asaga uu faa'iiday ayuu qofkaas sheegayaa. wuxuu u sheegayaa wixii asaga uu bartay. wuxuu leeyahay wadada tan haddii aad rabtid inaad ku guuleysatid sidaan ayaa loo maraa. haddii aad sidaan u martid waad guul dareysanaysaa oo waa dhinac dhinac. haddii aad saan u martidna waad kufaysaa oo waa dhinac dhinac. laakiin haddii wadada saan aad u martid waad guuleysanaysaa, waa wadada saxda ahayd. taas ma ka xunta adiga? waa macquul inaa ka xunta? mase waxaaba diidan tahaba gabar Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed wax u sheegaysa ma diidan tahay? maybe taasaa macquul ana hadalkaaga markaan fiiriyo. gabar Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed wax u sheegayso miyaa diidan tahay walaalkay? walaalkay xataa kuma oran karo, laakiin af Soomaaliga ku hadlaysid qiimeynaya. maxaa yeelay waa luqadeeda hooyo. af Soomaaliga ku hadlaysid waa luqadeeda hooyo. loo kaana af Soomaaligaaga uu gaja ahaan lahaa, waxaan oran lahaa waa ajnabi af Soomaali soo bartay, wiilalo yuusa idin qaldina. مع الأسف لكن إن أديكو صومالي أساس أفكرتين هذا فكرك أجي سوشيال ميديا كنت والسوشيال ميديا وعمل واحد لجوك لفائدة وعمل قفك فكر كيسو وكوجد بيكون مديدن هذا أديك قرد أو أركتين. لكن إنا أفر إلى واتنك الساعة كل جنتاي إلا أجركودي كلا تتلمامته. سبحان الله عسى وجل. والله ووحلا حماضو. والله waa wax laga xumaado. run ahaantii waxaan ku dhihi lahaa dib isugu laabo, ilaahay u toobad keen, li'annahu tan maanta waa laga tagayaa, bari waxaad tagaysaa xisaabtaadii oo aad qoomiyad dhan oo Soomaaliya gabdhahoodii isku duuduub aad iskugu qabatana deecna kaama yeelayso. bari waxaan ku faraxsanaa gabdho yaryar oo jawaab gabayo yaryar iyo geeraaro kusoo sameeyay. run ahaantii waxaan ku faraxsanaa gabdhaha maanta sida wax u fahansiina alxamdulillaah rabbil caalamiin. laakiin ma ahan inaan sheeg adiga oo kale inaan soo hadal qaadno ma baahanba. laakiin meesha waxa ku daawanaya caruura ku daawanaysa, dhalinyaro ku daawanaysa, ilmo yaryar oo hadda madax soo qaada ku daawanaya, waxa ku daawanaya kuwa adiga aan ka aqal liidan baa ku daawanaya. walaalo macaan waxaad samaysaa dib inta isugu laabatid ilmaha naga marna habaabine. haddii adiga problem uu kugu dhacay laba ragca sunno ilaahay u duko waxaad raada ilaahay oo qalbigeyga ii qabooji. allahumma yaa muqallibal qulubi thabbit qalbi ala diinik. ilaahay qalbigeyga ii qabooji. haddii problem ku haysatana ilaahay bari rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. aqrisa adkaarta oo problemka looga baxo. dhibaato iyo howl adag iyo hadaarad ina qabdidna allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idha shi'ta sahla. astaghfarta badso. ilaahay bari ma aan kaamir inta soo fariisato qoomiyadaan gabdhahooda oo dhaqaatiir leh oo culimo leh oo gabdho wax bartay leh oo diinta bartay leh oo tafsiirka. subxaanaka yaa waduud. walaal maxaa kugu dhacay? waa markii igu horeysay asxaabteedu waxaan uga cudur daaranayaa aan qof hadlay ka soo daba hadlo. anigu ma jecli youtube-keygana dabeecad uma ahan inaan qof maxaa tiraahdaa ka soo hadlo ama waxoo hadlo. laakiin tan waxaa la dhihi karaa waa marin habaabin.
marin habaabin la marin habaabinayo dhallinyaradeeni iyo bulshadeeni la marin habaabinayo waaye maanta waxaa jira kumanaan milyan wiilal Soomaaliyeed ah oo wanaagsan oo sharfan oo waxaad ku soo gashay marka aad korinayso ilmo aadan dhalanin maxaad ka faa'iideysaa ma ku sheegaa أجر وكفائدة يا قف سيكون أبو وكفائدة يا أجر وحال أركي هو يوين Soomaaliyeed oo ilmo sita oo la furay oo caruuro wata oo wiil aan wali guursado caruurteedii ayadaba halkaas shafka gashtay xaasha kulillah marka lagu leeyahay faruhu waa shan ma sinna faraha bini aadanka marka lagu leeyahay waa sax maxaa yeelay bini aadankana fikirkiisu waa saas waxaa la fikirka bini aadanka marka la cabirayo waxaa lagu cabiraa halbeegyaa jiro mar aan ka soo hadli doono asxaabteeda haddii ilaah yiraahdo asxaabteeda igu xiran haddii aad maanta hadalkayga u aragteen in uu yacni maamada ee qaldantay waa idinka raali gelinayaa laakiin waxaa idin leeyahay fadlan adinkana fikirkiina ku soo cabira commentiga maxaa yeelay haddii la marin habaabina dhallinyaradani oo maalin kasta gabdhihi fiiri hal su'aal idin weydiinaa hal gabar haddii qalad yar gasho oo wax yar oo qalad ay ku hadasho raggoo dhan baa istaagaya saanay dhahday kanay dhahday hebelo aawa nimanka youtuberada waaweynka caaway ma aragtiin miyaa mase fikir adinka aydan dhihi karin oo idiin soo gudbiyey waa ku raacsantihiin saasaan dhihi karnaa hal gabar haddii qalad yar samayso maanta oo dhan TikTok iyo Facebook iyo YouTube iyo aalada iyo meel kasta iyo Snapchat saasaa la iskula dhex marmaraya hadalka inta la soo jajaro waliba inta ugu xun ugu qaraar laga soo qaato laakiin haddii hal wiil maanta uu soo gafo adinka dhan afka cimaamada saaranaysaan shib ilaa hooyadii Soomaaliyeed jirkeedii la kala tilmaamo oo la kala waxeeyo oo la caayo oo ayadii ubadkeeda la caayo oo gabdhihii yaryarka ahaa oo aan wali guursan ayaad guurka faabiya ka gelinaysaa gabdhaha yaryar ee social media ku jiro waxaa idin oranayaa rag ma wada xuma raggeena Soomaaliyeed ma wada xuma waxaa ku jira fariidiina ku jiro niman waxaa ku jira ilaahay aqli diini iyo maadi labadaba isugu daraa ku jiro niman ixtiraam iyo ciziga barbaarin wanaagsan lagu soo barbaariyaa ku jiro marka waxaa idin dhihi lahaa gabdhayn hadalkaas dhagna jalaqa u siinina waa qof un iskaalatiisa ka hadlataada ka raaco ma jecla inaan kusii dheeraado walaalkay adigana waxaan ka raali gelinaya haddaa fikirkayga u aragtid inuu qaldan yahay laakiin waxaan kuu sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed sida adiga aad u aragta maahane waa si kale ka duwan dib ugu laaba historiga Soomaalida dib u fiiri haddii qalad yar ama problem yar aad la kulantid ma ahan inaad dadka jaa'ifaysid waxaan ku leeyahay ka fiirso inta aadan falin ayay Soomaalida ku mahmaadaan aadan u jecla mahmaayooyinka la yaabina waxaa kaloo tiraa Soomaalida hadal aan fiirsi loo oran iyo caano aan fiiqsi loo dhamin feeraha ayay waxyeelayaan awoowe iska ilaali hadal aan fiirsi loo oran iyo caano aan fiiqsi loo dhamin feeraha waxyeelayaan iska fiira awoowe oraahda aad la taagantaa TikTok iska eg dib isugu laabo fiidiyoyaashaada daawo walaashiina aamin macalin oo idin soo dhawaada subscribe noo saar channelka asxaabtaada la wadaag commentigaagana waa waxa kaliya ee aniga hore ii kaxeeya wad ku maasantihiin inta muuqaal inta la wada ku kulmi doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh